madaxweyne waa ku salaamaya islaam bugta oo tabcaan oo kuwa dadka guryaha laga saaraya ka mid baan ka mid ahay madaxweyne waxaan kaa codsanayaa guriga kaadida laygaga qaadaa gaarihii meel dhakhtar laygu geeyamayo socod ma lihi gabadha askariyadda abaa habaryar hooyada ah oo aan gurigeeda joogaa waxa weeye madaxweyne cadaalad ku shaqee cadaalad waxa naloo qabto oo hoosa naloo eego cadaalad waa la dhimanayaa wax dhulka joogaya ma jiraan wax guri dhisanaya ma jiro waa bil rabadan naga soo gaadh islaan haddaad tahay ay bila rabadaan tahay oo nala xasuuqayo naga soo gaadh الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد وعلى محمد فارح ciidan kana kamida askariyadna walibana anugu waxa weeyaan hanti qaran Xuseen Axmed Caydiid baa geedoole u tagay markuu geedoole u tagayna warqad bayna tuseen waxay nagu yiraahdeen warqadaasana lagu siiyay hanti qaran cid isku wareejin karta horta marka hore ma jirto marka labaad golihii guurtida oo yaacaya noo yimi arrinka iyagii bay soo galeen iyo golihii baarlamaanka oo dhinaca hogaaminayay waxba way ku waayeen warqad cali mareexaan baan u tagnay warqadii madaxweynaha waan ka weynay cali waracadaan u tagnay warqadii madaxweynaha waan ka weynay waxaan u tagnay Jeeniyare warqadii madaxweynaha ka weynay wasiirka dibadejintaan u tagnay waan weynay markii aan waraysanay waxa lagu leeyahay madaxweynuhu uu seexdo waxba war uma hayo ya wuxuu idin qabanayaana ma jirto kun baan idin sheegay inta dad ka jirtaana wallahi idinka ka mas'uuliye bilaahi afkooda waxay naga geeyeen madaxweynuhu uu seexday oo geeridii nabiga war uma hayo waxa weeyaan 20 sano aan ku jirnay waana sun halkaan ku jirnaa waa suntii hangarada beeraha cid isu quuraysa iyo cid degaysa toona ma jirto dhixdaa qoysna waanu nahay waxa weey ninka Xuseen Axmed Caydiid la yiraahdo habeen walba halkan uu nagu dhaafaa xafiisku ka shaqeeya aniga igana golaha baarlamaanka igu arku igu yimaada ma amaanad guurin maxaa ku dhigay يا تصدق كونه $1 أقل ما دستو يا صندوقنا ما دستو وحويان هو يدا يوم يدا سكرات هالكاتالا أقل كان كوهاي السنة هي قبيلة هاي كديها لقاها يا وحويان عسكري بعملنا كرايس كما بحين كرينو هنتيس كما بحين كرينو الدويس كما بحين كرينو وحنو لنا مدى حوينو وصلنا قمضة هذه بعملنا وسوف رجلي دق وسوف رجلي ولي أنا وادوكت شقالة هو صاد كصدق دخلي الله تقول أسومان أي قاتل مصحات رزق مصحات قال ويان ضدك ماشي كشقية يا كرنا يسمى بحين كرنا وحاسو عهورة ماشي شوجا ضد حنوسنا يا شوجا ضد بعتي سنبع شوجا دق مدح وين ناس وفرقري وتوك تيسبع يسطي أولي بنا بانكون الدولة ده هو كاكاو تهاي ما يركو كاكاو ياي يا نيك حسن شهر لي هذا أنا قول لبسنا دريس كنا لبسنا من عتوي دورت هذا يقول شبي وان كاسر يا أبي يقول قرية مرقي من خاتنا وين هاي يا وحويان مدحوين هوسنا يكتبون متربان كوتشناي كارركي بقى لسمايي بالشهر رمضان إلا فحري هاي إلا سومي هاي عذابه إلى هاي حري أيان خاتيان كتاجن هاي النقطة مالنا عفرنا وحلو عنا سنان يشري يا بانو خاتيان كتاجن إن من كايس بهاي سقلا بعي حسين أحمد عيديد ككوي هاي إيجو ذلك ككوي هاي خاتيان من كتاجن هاي ونروح دقنا حافظنا شعبك قارهان قيبتنا حسوقة ayaa waxa dhacday inay noo yimaadeen dadkiina kala xagan soo taagan ay noo yimaadeen qolaha suuqi annagoo dad danyara maatiya caruura waayeela dad dhaxale annagoo waxba la weydiinin annagoo waxba cid noo imanin annagoo shaqaale dawladeeda annagoo askar iyo cid walba shaqaale hoosaad dumar meel masaxayeele mujaahidiintii ay agoomihii cid walba ka ku jirno ay noo yimaadeen ninka la yiraahdo Xuseen Axmed Caydiid iyo geedoole ay isku wareejiyeen meesha aanu deganeen soddonkaas inta dalka lagu jiray waa 30 sano ku dhawaad aanu deganeen iyadoo aan haba yaraatee aan sifa sharciyeed loo soo marin iyadoo haba yaraatee aan waxba la weydiinin iyadoo haba yaraatee waxba la sakaay tarin ilaa dawladda hoose ilaa dawladda sare mudana madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa dad maatiyo jilicsan baan dad shaqaale dawladeeda baan dadka xasuuqa ee 88 dhintay in dadka nool maanta ee jaamacadaha ku jira ee shaqaalaha ee ciidanka ee maatida leh in la yiraahdo dadka isteeysiga la foogayaan miisiya mu sameeynayna dadka noolna maanta waan qubayna madaxweyne taas waa cadaalad daro waa xaaran madaxweyne ilaahay aad u kala xisaabtamaya waan magacaygu waxay bacayna muuse shaqaalaha hoosaad golaha guurtada kamid ah
sidii dadka horeba idiin sheegeen dadka guryaha ku jira baan ka midna sidii ay dadka horeba idiin sheegeen maxay ahaydey mushaarkaygu waa 320 shaqaale hoosaad baan wax meel oo la ileeyahay ciidaas oo dawladda ku salaysan oo dawladda ka meel walba waan maray ka hawlaha guud baan maray ka maxay ahaydey meesha dib dejinta tagay qof igu yiraahdo riboodka waan haynaa oo madaxweynaha way ka soo baxday ilaa hawlaha guud ma hayo madaxweynuhu de sharcigu u soo dejiyay shicibka ku jira guryaha hayba cayna masaaniga magacayga leeyahay mar horaasay yeena qaldayn ma garanayo ma wad sheegtay kowde sharcigii guryaha dawladda uu soo dejiyay madaxweynuhu ee aan ka mid ahayn dadkii hantida dawladda ku jiray wixii uu madaxweynuhu ka soo jeediyay anagu waxba kama qabno laakiin wixii ka duwan ma ogolin 3,000 oo dollar bay noola yimaadeen iyo xoog saddexdaa kun waxay dhahdeen 100,000 cashuur baan ku bixinanaa joomitir baan siinanaa 100 2,900 qaata hadaa ku bixi weydaana xoog baan idinku saaraynaa arrintan rabitaanka in la dhalisay maxay tahay waa la bixiyay dhulka xuseen axmed caydiid iyo waxa siiyay geedoole wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xafiiska imika annaga le waa nala siiyeen wuxuu hoos tagay cadaaladda ilaa wasiirkii cadaaladda aan tagno arrinta anigu ma hayo cadarre ma fahamteen odayaasha golaha guurtida kuwa baarlamaanka way wada yimaadeen way wada tageen waxa la yiraahdaa anagu xogta ma hayno haddaba halka ay nimankani xogtan ka keeneen ee annagoo nool ay naqbayaan ee naleeyihiin maxdaf baan ka sameynaa xasuuq baan ka dhisaynaa imise qabiil ba halka kan dad ka dhinteen waa imise qolo ayay dad ka dhinteen imise qolo lagu heshiiyay xasuuq muxuu yahay maxaraam ba maxalaal horta marka hore hal is weydiiyo annaga xaq leh oo nool oo shaqaale dawladeeda meel hana la dhigo wax wanaagsan aan nafsi wixii dadka dawladda sharci aan u leeyahay waa qaadanayna annaga ba dawladda kamid ah shaqaalaha laakiin xaq darro ma ogolin askar baanu noo dalbaday walibana بسم الله الرحمن الرحيم وحنا يعني ولا حياة إبراهيم سلوك odayga lagu guur cabdi أنا نيجا يجي بربرة لقو جورعي أغانتان كم إذا هاي ماشى وان كشرة وحن دون يا مدح وين دين حقيقة الله يمريو أنا الدلمين ده كان أنا الدلمين حنسوق أنا قدنا الحنسوق ما يا مدح وين أبتاجن أنا باش نوتشوجة حنا راح نسوقية بيجي ذاك اللسين أنا مريان قلنا عدالتنا رواه إن الأخطبة مرة بنادي وتشوجة عن نار حنا كوفات كوسين هنا نكو عيارين سمات قرن وحويان أنا أغانتين حي إن الحاجاتيان إن ذاك اللسين للصيو وملنا للدشيم مسوق هيك الله قاعد madaxweyne wax magacaygu waa Nimcash Musdiin oo Nuux waxaan ahay ardayad wax barata waxaan ahay gabadha awlaadan iyo dumarkan maatidoodii baan ahay marka madaxweyne waxaan ka codsanayaa inaad wasiirada iyo awlaadoodu ay ubadkooga jaamacadaha wadamada u diraan anaguna aan jaamacadihii wadanka la daalaadhacno haddana aanu oo guriyahayaga iyo halkan deganin madaxweyne xoogna lagaga saarayno la dayacayo madaxweyne codkayagan ku siinanay kaagamaanu fadhiyin mana ogolaanano waana lagu baabiinaya haddaan madaxweyne naga soo gaarin wixii halkaana ka dhaca madaxweyne adiga ka masuula anagu ubad baanu nahay adiga noo maqan adaan ku dooranay adigan wax ka sugana anagu cidna ma lihin aan adiga ahayn waxaan nahay dadka wax dhiganaya adigoon madaxweyne ku suganay adigu baa noo maqane madaxweyne si degdeg ah nooga soo gaar hal talaabaan ku jirnaa wakaalada biyaha dhinaceedaan nahay madaxweyne dhulkii magaalada dhan baa madaxweyne la kala iibsado 100 kun iyo 200 kun la kala siistay madaxweyne waxa xataa la iibsado oo marag iyo maqraata adiguba ka tahay oo haboon deeq iibsatay boostiga isgaarsiinta haddii da sharci lagu kala iibsanayo boostiga isgaarsiinta dul dawladeeda la kala iibsanayo madaxweyne annagana hana laga iibsado waatan xaafadii madaxweyne la iibsaday taanagu xaq iyo xuquuqdan u leenahay doon diidi mayno dawladeeda iyo dadkeega shicib baanu nahay maalinta dalkeega iyo dadka dawladeedu banaan baxaysa bacadkaas aanu taagane madaxweyne waxaan ka rabnaa inaad xaqayagina marisid ma doonano annagu wax baada laakiin waxaan doonanaa xaqayaga annaga kolba nin madaxo afar nin wato awlaadiisa Yurub kaga yimid annagana dayici maaye madaxweyne adan xilka ku dhiibanay waxaad noogu qancisid baan ku qancanaay madaxweyne naga soo gaad meeshan